saaka waxaynu dhagax dhignay xafiis cusub oo looga dhisi doono si loogu fuliyo howlaha qaran ee wasaaraddu u hayso qaranka oo runtii aad loogu baahnaa wasaaraddu ugu baahnayd xafiiska maalgelintiisa waxaa sameynaya World Bank mashruuca barwaaqo ka soo baxaya runtii mashruuca barwaaqo oo markii hore biyoolo ahaa wasaaradda shanta ku bahoobay inay u dadaalaan wixii macaawino ee la siiyey inay sidii sax ahayd u baxdo oo qolo walba waxay u baahnayd loogu qabto ayaa qorshaha iyagu ahaa mashruucaas oo berigii hore si khaldan loo qaybiyo wasaaradihii wax soo saarka ee wasaaradda xanaanada xoolaha ka mid ahayd iyo beeraha dhaqaalaheeda loo yareeyey annagu waxaanu ku dadaalaynaa intii yareedana la siiyey inaanay naga dhicin ee waqtigeedii aan ku isticmaalno si aan u helo wixii baahiya kale aan codsanay aan u baahannahay marka waxaan halkan ku ammaanayaa mas-uuliyiinta wadda shaqada barwaaqo ee BIU-ga ah oo aad u dadaalaya iyo shaqaalaha supporting-ka ah ee wasaaradda oo si fiican u wada hawsha annaguna aanu ku kor joogteynayno ayaan aad ugu ammaanayaa dadaalka ay wadaan waxaana leeyahay halkaa ka sii wada markasta oo wixii mucaawinaa layna siiyo aynu sidii loo baahnaa u fulino waqtigii loo baahnana ku fulino waxaynu filaynaa in wax inoo kordhaan markastay dib u dhacaan waxaasu ama waqtigii loogu talagalay dib uga dhacaanna in mucaawinadii laynoogu talagalay meel kale loo leexiyaa suurtagal ah markaa qaran ahaana taa waynu ka dadaalaynaa annagu wasiir ahaana kolley waa ku dadaalaynaa idinkuna waa muuqataa dadaalkiinu wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu